khiyaarta hawada nagala xiriirtay ku soo dhawaada barnaamijka Somali Magazine oo aad nooga barateen wiigiiba inaan idin soo sii deeno hal maalin ee Talaadada. Haddaba barnaamijkayga waxaan maanta focuska ku saareynaa arrimaha doorashooyinka degmada magaalada Aarhus annagoo uu martina noo yahay siyaasiga weyn ee Cali Nuur oo arrintaas aan la falanqeynayno. Cali Nuur ku soo dhawow. mahadsanid mahad. Cali Nuur waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ugu horreyn waxaad ii sheegtaa maxay tahay nooga war noloshaada haddaan akhbaarkaasi horta waa mahadsantahay inaad igu martiqaaday halka kan waa midaan maad aad iyo aad ugu faraxsanahay. aniga saad hore u sheegtayba yani Cali Nuur baa la yiraahdaa. muddo dheer baan wadankan deganaa. wadankan waxaan imid 84 ayaan soo galay. waxaan ka soo galay wadanka Sacuudi Carabiya ayaan ka soo galay. waxaan deganaan jiray magaalada Jidda ayaan deganaan jiray oo aan dhigan jiray jaamacadda King Abdulaziz University la yiraahdo ama jaamacadda Malik Abdulaziz la yiraahdo ayaan dhigan jiray. halkaas oo aan ka soo baxay jaamacaddaas. Denmark ayaan imid. Denmark markaan imidna hadee halkaan ayaan waxbarashadeedii ka watay. jaamacaddan Aarhus ayaan ka soo baxay oo 90kii ayaan jaamacadda dhameeyay. anigu hadda Aarhus aan deganahay. waxaan kaloo aan rabaa maarta inaan sii raaciyo. waxaan kaloo soo bartay macalinimada. macalin ayaan ahay. soo bartay macalinimada soo bartay waa midka aan ku shaqeeyo. run ahaantii waxbarashadii aan ka soo qaatay jaamacadda inteeda badan kuma aan shaqeyn. hase yeeshee mid aan ku shaqeeyo hadda waxa weeye waa midda macalinimada ayaan ku shaqeeyaa. anu 2 wiil baan leeyahay. 2 wiil kan u weyn wuxuu bartaa computerka ayuu bartaa. sanadkan ayuu dhameynayaa. kan kalena wuxuu bartaa xagga barbaarinta ubadka ayuu bartaa. wuxuuna damacsan yahay markuu qaato jaamacadda qaybteeda bachelorka la yiraahdo uu qaato inuu sii wato oo uu qaato waxa loo yaqaan anthropology ama yani maadaas raba inuu sii qaato. marka aniga nolosheedu waa saas weeye. muddo dheer ayaan wadankan deganaa saad ka dareemaysaa. Cali Nuur waxaan ogsoonahay bishaan November 19keeda inay nagu soo socoto doorashooyinka degmada magaalada Aarhus. wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha arrimahaas ay ku saabsan yihiin? waa arrin aad iyo aad u ballaaran ruhaantii. doorashada degmada muxuu ahaa maamulka degmadu yani waa mid aad iyo aad muhiim u ah. sidaad ogtahayba yani dowladdu maamulku wuxuu u qaybsan yahay wadanka lagu maamulo. baarlamaanka ayaa go-aanka gaara. go-aanka ay gaaraan iyo arrimaha la xiriira xagga sharciga la fulinayo dabcan arrimaha booliiska iyo maxkamadaha ayagu laftooda lug bay ku leeyihiin. laakiin midda muhiimka waxa weeye degmooyinka. 98 degmo ayay leedahay Aarhus. Denmark leedahay. Aarhusna waa mid kamid ah magaalada labaad ee wadanka Denmark weeye. 300 iyo ilaa 20 ayaa ku nool. 300 kun ilaa 320 kun ayaa ku nool yani wadankan muxuu ahaa magaaladan Aarhus ama degmada tan la yiraahdo Aarhus. arrinta doorashadu waa arrin muhiim ah. hadda Aarhus oo kale waxay ka kooban tahay 31 qof ayay ka kooban tahay dadka fadhiya meesha fadhiya. waxaana soo doorta xisbiye kala duwan ayaa soo doorta. anigu horaan ugu jiray hase yeeshee taas gadaal baan ugu soo noqon doonaa. waxa weeye inta ku jirtana waa la doortaa. waxaa doorta xisbiga ayaa doorta. bisha 19keeda November ayaa waxaa dhacaya doorashadii loo yaqaanay doorashadii maamulka degmooyinka la yiraahdo. qofka ka qayb qaadan kara doorashada noocaas oo kala ah waxa weeye waa inuu qofku deganaan jiray ugu yaraan 3 sano wadankan uu deganaa magaaladan deganaa ama wadankan deganaaba. waa mid lagu xirahayo. waa haddaad haysato baasaboorka wadankaana isaguna waa mid muhiim ah. wadamadan reer Yurub qaybo kamid ah oo iyaguna aan looga baahnayn ayaa jira maartay inay baasaboor Danish wataan. qof waa inuu 18 sano jiraa. qof 18 sano ka yar doorashada ma bixin karo. marka sida ay u qaybsan tahay saas weeye yani maamulkan markaad fiiriso waxyaaluhu qabanayo waa wixii ka socon lahaa degmadan oo dhan. waxay noqon kartaa jidadka. waxay noqon kartaa dugsiyada. waxay ka noqon kartaa xagga shaqada. waxay noqon kartaa xagga bulshada. ayay noqon kartaa wax dhinac kasta oo yani bulshada lagala xiriiri karo ayaga ayaa la kula. go'aamada gaaraanna waa la tixgelinaya. uma ay baahna go'aamada qaarkood intooda badan inay la soo tashadaan maartay baarlamaanka wadanka oo loo yaqaan folketing. marka qofka doorashada degmada galaya siyaasiga ah
waxa way arrintaasi bulshada Soomaaliyeed aad bay muhiim ugu tahay. maxaad aad oran kartaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad Soomaalida hadday doorashada dadkaan ogeyn inta badan dad Soomaaliyeed badan waxa jira doorashada aan wax badan ka ogeyn maxaad oran kartaa macnaha dadka Soomaaliyeed aad kula talin kartaa oo doorashada ku saabsan taas waa su'aal runtii aad iyo aad u wanaagsan weeye dadka waxa lagu la taliyo waa mid deegaanku ay yiraahdaan xaq baad u leedahay adigu xuquuq baad leedahay xuquuqdaada waxa kamid ah inaad wax dooran kartid adna lagu dooran karo adigu inta soo saartaa sharax kartaa marka shuruudihi hore aan u soo sheegay aad ka soo baxdid waad iman kartaa waxa leedahay inaan sharaxan raba markaas waxa u tagaysaa xisbiga aad u maleynayso inaad siyaasadda la wadaagtid ila xisbiga ayaa jira adan ruuxaantii siyaasadda la wadaagin marka u tagtid ayaad marka waxa weeye taas waa mid aad iyo aad muhiim u ah inaad hadaa wadankan degan tahay gaar ahaan aad degan tahay degmadan in aad muujisid oo wax xaq aad u leedahay aad maartay ka qayb qaadatid oo aad muujisina doorka aad leedahay degmada aad ka leedahay iyo bulshada halkan ku nool aad la wadaagi kartid ina adiguna geeskaaga ka qabsatid hadhow go'aamada la gaaro waa ku adig ku saameynaya tusaale ahaan hadii iskool la xiro xaafadaada ku yaala oo degmadu xirto yani aday ku qosaynasaa adiga ilmahaaga hadii ay dhacdo maartay in meel la xiro shirkad la xiro hadii jid la sameeynayo adiga kugu soo aadan yani jidkaas wuxuu saameynaya deegaankaaga iyo noloshaada ayuu saameynaya marka hadaadan go'aan ka gaarinin oo adigu aadan markii horeba aadan go'aan ka gaarin oo aadan dooranin meesha aad u maleynaysa maartay in fikradaada lagu fulin karo ila adigu waxaad u baahan tahay in fikradaada adiga qof ku matali kara aad dooratid ama aad u maleynayso inuu ku matali karo ma dooranayso qof ka fog adiga aad maxaad qofka siyaasiga ee degmada galaya in muxuu doora uu leeyahay oo Soomaalida u soo kordhinaya run ahaantii waxyaalo badan buu qaban karaa yani tusaale haddaan kaaga soo qaado yani sidaan ognahay sumcadda Soomaalida ayaamahan dambaba waji kale ayay lahayd waa midda aad culayska weyn aad saaraysid oo loo baahan yahay maartay inaad wax ka bedeshid qofka markuu meesha ku jiro wuxuu u yahay yani marka qof la doorto oo galo ka mid noqdo 31 qof ee fadhida golaha maamulka ee degmada yani waxaad adigu matalaysaa oo aad mas'uul ka tahay waxyaalo kasta oo quseeya degmada dadka ku nool ma ahan jinsiyad kaliya ma ahan Soomaali kaliya ma ahan Arab ma ahan qolo kale ma ahan waxa weey waa dadkoo dhan laakiin gaar ahaan anigu maadaama aan ka soo jeedo Soomaali aan ka soo jeedo oo dadkaygu Soomaali yihiin aan duruuftoodan si gaar ah aan ula socdo waxa weey mid muhiim ah oo weyn aan door weyn baan ka ciyaari karaa horta marka u horeysa sumcadda Soomaaliyeed inay hagaagto waa mid aad iyo aad muhiim ah saan hadda يعني كذا بان ugu noqon doonaa marmaleynaya midaan ah inaan meesh ku jiray in kale كذا baan ugu noqon doonaa laakiin waxa weeye doorka aniga aan ka ciyaari karo waa door aad iyo aad u weyn weeye waxay noqon kartaa xagga shaqada ayay noqon kartaa يعني gaar ahaan dadka Soomaaliyeed taas oo soo noqon laakiin door weyn ayuu qofka ku jira meesha soo gala oo uga ciyaari kara dadka Soomaaliyeed jeeda kale qof baa u fadhiya dadka Soomaaliyeed oo ay oranayaan qofka Soomaaliyeed ayaa noo fadhiya markay u baahdaan ay u jeey karaan ama u yeeran karaan ay la hadli karaan waxyaalaha iska beddelaya bulshada ma ahan midaan aan ku noolahay kaliya oo iskaliya ma ahan yani bulshada guud ahaan waxyaalo badan ayaa iska beddeli kara sharciyaal cusub baa imaan kara oo quseeya dadka ajaanibka quseeya marka waxa ay u baahan yihiin oo fiicnaan aad u fiican qof inuu u fadhiyo meesha oo mar walba warbixin ka siinaya oo ay wareysan karaan markay rabaan ay telefoon u diri karaan ama warqad u qori karaan ama mail ay u qori karaan oo ah ayagana kamida طبعا dadka kalena asagu qof waa u shaqeynaya moogta anur waxa sidaan ku soo waxaad soo gashay degmada maamulkeeda nin way arag ah oo maamulka degmada ka soo qayb galay ahayd hal mar hore ayaana gashay adoo muddo 4 sano joogay maxaad ummadda Soomaaliyeed degmada degan ama ku dooratay maxaa shaqooyin aad qabatay barigaas horta run ahaantii taas waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan anigu 4 sano ayaan ku jiray 2005 ayaan soo galay ilaa iyo laga soo gaarayay 2010 laga soo gaarayay taasoo aysan nasiib darro ii suurtagelin mar labaad inaan maartay aan galo duruufo kala duwan ayaa jiray laakiin waxa weeye saasay tahayba 4 sano aan meesha fadhiyay run ahaantii waxaan rumaysnahay inaan door weyn aan ciyaaray oo aan qabtay waxaan tusaale ahaan haddaan u soo qaato arrimaha la xiriira haweenka Soomaaliyeed oo aan
aadi karinin shaqooyinka caadiga oo shuruudaha lagu xirayo ama shahaada lagu xirayo ama luqadda lagu xirayo ama arrin badan lagu xirayo in aan isku dayay inaan bal u raadiyo shaqo ay ka shaqayn karaan iyagu ay geli karaan waa shaqooyinka la xiriira daryeelka dadka waaweyn tacliin bay soo qaateen waxbarashay soo qaateen yacni runtii waxaa iga qabsaday maarata hawl weyn baa iga qabsatay inaan isla xiriiriyo qaybo badan ee ka tirsan degmada ka tirsan aan isla xiriiriyo si ay maaragtay arrintaas ay u hirgasho nasiib wanaag waa hirgashay taasu waa hirgashay dad badan oo hadda ka shaqeeya ayaa jira oo tacliintii soo qaatay dad badan haddii weli ku haminahayaan inay qaataan taas waa qayb ka mid a ayahay qaybta kale oo muhiimka waxaa weeye qaybta xagga tala bixinta waxbarashooyinka yani waa mid aan door weyn aan ka ciyaaray oo aan intaas yani ardada ama aan ku waaniyo ama aan maarata u diro meesha ay u malaynaya inay kasoo bixi karaan sababto waxay ku xiran tahay qofka markaa la hadlo haddaad tiraahdo waxaan rabaa inaan soo barto daawooyinka inaan qaataan rabaa dhakhtar aan noqdo hadduusan qofkii yani maadooyinka qaarkood ku wanaagsanayn waa inaad kula talisaa inuu adlihiisi maaragtay ugu yaraan bal maadooyinkaas uu soo qaato uu soo dhismo garanaysaa marka xagga la talintu run ahaantii yani waxay ahayd wax weyn oo aan door weyn kaga ciyaaray xagga shaqooyinka dad badan baa ila soo xiriiri jiray si joogta ay ila soo xiriiri jiray mid baa wuxuu leeyahay war waxaan rabaa maaragtay meeshaas ayaan rabaa inaan beeraha rabaa inaan aado bal hadda tusaale ahaan beeraha ayaan rabaa inaan aado arjiga inaan qoraan rabaa sidee baa loo geli karaa ma u malaynaysa inaan kasoo bixi karo xagee la mari karaa halkaasa la aadi karaa maxaa suurtagala haddii loo baahan yahay inaan soo baaro arrimo soo baaro aan marlabaad la ballamo aan sameeyo marka xagga shaqooyinku aad iyo aad bay u muhiimsan yihiin garanaysaa tan kale oo iyaduna muhiim ahayd waxaa weeye midda ah dad badan oo Soomaaliya dad badan ayaan dhihina dad baa jiray maaragtay dhacdayr ama ilmaha laga qaaday ama say noqotaba taasoo aan maaragtay dagaal la galay oo aan la halgamay in maaragtay aysan sadabada kusoo dhicino ilmahoodii iyagoon meel jiraan aan la ogeyn ay iyagu laftooda banaanka soo istaagaan macnaha inaan isku xiro oo aan iraado dadkii maamulhayay waaridkaanu maaragtay waa ololsan yahay bal aan isku dayna in maaragtay bal labada la ogaa reer waaridku ogaado ilmihii meeshii jiraan meeshii ku nool yihiin halkaasna laga sii wado taas waa mid tan kale dad baa laga yaabaa in la xiray tusaale haddaan kaaga soo qaato wiil baa jiray la xiray dhowr jeer meelo badan duwan lagu kala xiray oo aabihiis fikradda uu haystay markuu aniga ii sheegay aan rumaysnaa ay ahayd maaragtay in qaladaad uu jiray laga galabsaday kaasoo isagana halgan aan la galay oo markii dambe wiilka la soo sii daayay garanaysaa marka waxa weeye waxyaalo badan oo muhiima ayaa jira xagga dhalinyarada markaad tiraahdid tusaalahaan haddaan kasoo qaado midda muhiimka ah dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan gole ay helaan meel ay ama kubadda cagta ku ciyaaraan ama wixii kaloo lamid ah dhalinyaro ayaa ii timid waxay yidhahdeen waxaan rabnaa inaan urur samaysano ururka aan sameysanayno waxa uu yahay urur maaragtay qaabilsan xagga ciyaaraha kubadda cagta qaabilsan waxaan u baahannahay inaan shirkad meel waxaa jira tartanka shirkadaha ayaa la yidhahdaa waa meel dhalinyaradu kubadda ay ku ciyaaraan oo isugu yimaadaan inaan isku xiray inay maaragtay xataa isku dayay maaragtay sida ay u heli lahaayeen dharkii ay gashan lahaayeen inay iyagoo kooxa halkaas ay maaragtay isugu yimaadaan marka dhalinyarada dhinaceeda waa mid muhiim tan kale waxaan anugu had iyo jeer aan isku dayahay run ahaantii dhinaca Soomaalida inay shaqooyin ay ka helaan ama dukaamo ay ka furtaan meeshan loo yaqaan basaarka anugu markii aan meesha soo galay yani dad ban kuma jirin yani waxaa jiray dhuumasha ay xataa cuntada qaarkood ay ku samaysan jireen ilaa ayaan la xiriiray ninka meesha maamula oo aan u sheegay Soomaalidu dadka xuquuqda way la wadaagayaan waa mid muhiim ah maaragtay in Soomaalida sida loo tixgelinayo in dad kale soo loo tixgelinayo Soomaalida loo tixgeliyo taas hadda runtii wax weyn baa iska bedelay oo yani aragtidii ay ahayd saas ahayd wax weyn baa iska bedelay ilaa iyo hadda laga gaaray dad badan oo Soomaaliya inay beec mushtar ay ka samaystaan oo dadkii kale ay ula sameeyeen yihiin taas waa mid aad iyo aad muhiim ah tan kale haddaan sii raaciyo taas waxa weeye waxaa jirtay in aan mashruuc sameeyay mashruucaas oo ku saabsanaa in meel la sameeyo dhalinyarada ay wax yar ama madaxa wax uga jiraan ama muqaadaraad qaatay ama kana dhaxeeya isbitaalka ilmaha dadka maskaxda wax ka gaareen iyo ka dhaxeeya magaalada dhexdeeda maalin walba saas u soconaya waxaan isku dayay maaragtay inaan meel u furo meel Pennsville ila ku taala qaabqan ku taala inaan maaragtay u furnay in qof la shaqo geliyay garanaysaa oo lacagtii meesha lagu maamul lahaa aan maaragtay aan raadiyay
labadii mar oo la sameeyey muxuu ahaa dhaqaalaha wadan magaalada la sameynayay halgan weyn baan u gala tii hadda ugu dambeysay waxay ahayd runtii yani midaan hameenkii oo dhan aan usoo jeeday oo ahayd in maarata lacagtaas la helo si maarata qofna meesha inay yimaadaan in ay la soo xariiraan dad yani cilmi u leh in qof Soomaaliya uu ka shaqeeyo meesha oo meesha ka shaqo galo marka waxyaalaha aan qabtay waxyaalo aad iyo aad u ballaaran weeye run ahaantii anigu aan rumaysnahay weeye waana midda aan jecelahay maarata mustaqbalka dambe inaan saa kusii wado aad maanta waxaan ogsoonahay inaad u sharaxan tahay degmada magaalada August maxaad doonaysaa inaad ummadda Soomaaliyeed u qabato oo adiga ku dooranaysa waa mahadsantahay taas horta su'aal aad u wanaagsan weeye run ahaantii saan hore u sheegayba doorashada bisha November 19keedu muhiim weeye waa midda koowaad hadda doorashada xilliga aan 4 sano soo dhaafnay qof Soomaaliya meesha nooma fadhin hadda qof waa inuu noo fariistaa anigu waay arag baan ahay meesha waay arag baan 4 sano fadhiyay 4 sano aan meesha ku jirayna yani 4 sano aan meesha ku jiray qofkii waxaan ahaa aan maalin ka maqnaanin yani shaqada laga wado meesha sanadba waxa la sameeyaa tirguur baa la sameeyaa la yiraahdo yaa ka maqnaa shaqooyinkii loogu talagalay maamulka dugsiga degmada loogu talagalay anigu mar walba 4 sano ku jiray meesha aniga ayaa mar walba lambarka koowaad ahaa taas horta waxay tusaysaa mid la leeyahay Soomaalidu waa soo daahaan iyo Soomaalidu meel bay halkaan ay saan yihiin inaysan wax soconaya aysan ahayn sababtoo ah anaaba daliila Soomaali aniga iga waqti fiican baa jira oo waqti iga fiican Soomaali iga tacliim badan baa jirta iyo wixii kale lamida marka Soomaalidu ma ahan maarta dadka la leeyahay maalin bay soo daahaan oo shaqada kama soo baxan ma soconayso marka horta waxa weey wax muhiim ah weey taas su'aasha iyada maxaad qaban doontaa waxyaalahan qaban doono oo waxyaalo aad iyo aad muhiim ah oo ayaamahan dambaba aan maartay dadkana aan qaarkood aan xasuusiyay dhibaatooyin ayaa jira yani dadka Soomaaliyeed quseeya maxay tahay Soomaalidu dadka kale kama liitaan yani waxa weeye muddo dhow bay soo galeen wadankan haddii la isbarbar dhigo wadamada kale sida Turkiga oo kale la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa Soomaalidu run ahaantii horumar fiican inay sameeyeen xaggii dhalinyarada xaggaarnada markay fiirsina dhalinyaradu inay heer weyn ay gaartay gaar ahaan gabdhaha xagga waxbarashooyinka ama jaamacadda ha noqoto ama ha noqoto dhinaca maartay dugsiga sare ama dhinaca kale ha noqotoba yani inay kula tartamayaan dadka Deenishka oo halkan ku dhashay iyo jinsiyadaha kale qaarkoodna xataa inay kaga fiican yihiin waa mid muhiim ah in horta maskaxda aan ku hayno yani dhawaan baan soo galay yani u malaynaa maartay maadaama hadda aan nimeena adduunka oo dhan hal mar aan wada qabsanayno sababtu waxa weeye oo aan aragno dad kale naga tagay nalagama tagin waa la soconnaa haddaan nimid waan la qabsanaynaa waa mid muhiim ah marka halkaas ka raad raacaya waxyaalaha muhiimka ah oo aan Soomaalida aan u qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo haddii ay ii suurta gasho ballanqaadka markaan leeyahay waxbaan ballan qaadaya ma oranayo 100% waxaas aan sheegayo waa ballan qaadaya laakiin waa waxaan culays weyn aan saarayo nin siyaasi hadduu ku yiraahdo waxaas ilaa 100% anaa ka ballan qaaday hadduu ku yiraahdo been buu ku sheegaya sababtu waxa waxyaalo badan baa isbedeli kara laakiin hadduu ku yiraahdo waxyaalaha aniga aan hadda ku sheegayo waa waxyaalo aan ballan qaaday inaan culays weyn aan saaro oo aan ku dadaalo waa mid muhiim ah waxyaalaha aan qaban damacsanahay inaan qabto oo aan jeclaan lahaa inay ii suurta gasho Ilaahayna aan ka filahay maartay inuu garab istaago waxa weeye hawlahan soo socda yani midda koowaad waxa weeye dadka Soomaaliyeed hadda saad dareemaysaba yani dadka Soomaaliyeed waxa moodaa moogtahay inay ilmaha xagga waxbarashada meesha wax ku baraan ama waxa noqon karta meesha Quraanka ay geeyaan ama meelaha ay iyagu isugu yimaadaan inay maartay kala firfirsan yihiin wax yar garanaysa waxa loo baahan yahay Soomaalidu inay isu yimaadaan Soomaalidu inay meel ay wada dhan yihiin ay leeyihiin haddii halkan 2 karoon ku bixiyo kana 3 karoon halkan ku bixiyo yani waxa weeye waxa kaaga fiicnaan lahayd oo Soomaalida uga fiicnaan lahayd markaas weyn oo iyagu ay leeyihiin oo waxyaalo badan ay ku qabsan karaan inay isugu yimaadaan marka culayskayga oo dhan run ahaantii waxaan saaraya taas horaan u sameynay hore u dhacday hadda waxa jira waxa la yiraahdo Soomaalida qad gaming center waxa la yiraahdo oo hadda muddo hore halkan laga furay hasla laga furay aan ka sameynay يعني qofkii Soomaaliga ahayd kaliya ku jiray oo arintan arjigeeda qorideedii iyo intii laga sameeynayo dhan la socday anigu ahaa qofka kaliya ku jiray dadaalka aan sameeyna waagaas garanaysa duqoodna kuma aan jirin run ahaantii garanaysa muddo markay furnayd hada waa yani dadka inta badan waa ogyihiin waxaan ka hadlayo yani Soomaalidu ayaga markii dambana waxaad moodaa maartay inay
isaga hor yimaadeen taas oo ay ku heshiin waayeen ayaga ayaana iska xiray run ahaantii laakiin midda aan damacsanahay jeclaan lahaa waa midda noocaas oo kale inaan furno Soomaaliduna ay maartay ay u wada dhan yihiin hal waxa taabatay in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin midnimo hal meel ay caruurtooda iyo haweenkooda iyo noloshooda ay ku asturan yihiin kadibna ay wax wada qabsadaan sidee arintaas u suurtagelaysaa dadka Soomaaliyeed hadda waxaan ku soo inay aad iyo aad u kala daadsan yihiin waa mid suurtageli karta horta midda ugu horeysa waxba ma sameyn kartaa dadka laftooda dadka Soomaaliyeed haddayna ayagu aysan rabin ama aysan damacsanayn arintaa inay ay fuliyaan markii la helo dadkii inay wada isku aruursan yihiin oo ay jecel yihiin maartaas inay furaan yani mid la sameyn kara way anoo kale for example يعني waxa la sameyn karaa kumuuna degmada ayaa lafteeda door weyn ka ciyaaraysa tii hadda ugu dambeysay Soomaalidu waa wada ogyihiin halkaan degan Aarhus waagi boomasarkan u yaaray boomasarka ayaan duqa magaalada ayaan ugu yaaray arintii ayada ahayd markuu ka yimid Minnesota ayuu aaday wuxuu soo siyaartay Soomaalida degan Minneapolis degan America degan wuxuu soo siyaarinay wuxuu maqlay dadka Soomaalida waa shaqeeyaan dhinacaas degan boqolkiiba 60 waa shaqeeyaan Soomaalida degan wadamadan Scandinavia oo dhan Soomaali Denmark ay ku jirto boqolkiiba 20 ilaa 25 ayaa shaqeeya see ku dhacda kuwan 60 ay shaqeeyaan kuwan ay shaqeeyaan saas intaas yar ay shaqeeyaan see ku dhacda marka wuxuu kala soo kulmay ayaan soo marti qaaday duqa magaalada oo ay kaalay Soomaalida u sheeg meesha dugsiga hore oo noo gol oran jiray ayaan maartay waagi fooyin huusadku ku yaalay ayaan ugu yeeray run ahaantii yani waxyaaluhu yiri muhiimka waxay ahaayeen Soomaali haddaad tihiin fikrad ila imaada yani waxaad idinku adamacsantiin Soomaali haddaad tihiin waad rabteen fulisaan ila imaada anuguna garab istaagayaa garasa yani dadka waan u sheegay shirar badan baan qabanay hadda dadkii wali waxa moodaa wali maartay inaysan taas ku baraarugsanayn mid aan rajaynaya waxa weeye in Soomaalidu ay hadda ku baraarugaan jaanisyaashaas kale inay u furayaan fursado badan baa jira oo u furan waxay noqon kartaa mid xataa ka baxsan magaalada ka baxsan oo la xiriirta maartay baarlamaanka la xiriirta waxa kale jirta mid kale oo la xiriirta arrimo kale oo la xiriira European la xiriira oo dhaqaalaha laga heli karo laakiin haddii dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan oo ay damcaan inay maartay ayagu wax samaystaan waxaan rumaysanahay maartay inay wada gali karaan ay wax qabsan karaan middaas weey midda kale aan jeclaan lahaa maartay inaan qabto haddii ii suurto gasho ilaahayna meesha ii suurto gali inaan galo ilaa waxa weeye adoon meesha ku jiro hadda waxa mar balan qaadi kartay wada dabada ka taagan tahay waxa weeye waa mid la xiriirta xagga shaqooyinka waa mid muhiim ah shaqooyinka caadiga ah oo loo baahan yahay aad bay in ama shahaado la haysto watii horaan ka hadlayay soo jeed ama shahaado la haysto ama loo baahan yahay luqadii lagu fiican yahay arrimo noocaas oo kala runtii waxa moodaa dariiqad ka sahlan oo anagu aan abaaro shaqo abuur aan sameeyno waa mid ku soo samayn karnaa aan isku dayno inaan furno xanaano dadkan ilmaheena lagu xanaaneeyo ilmaheena meesha xanaanada golaha xanaanada aan helno golaha xanaanada yaa ka shaqeynaya dad Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya waa mid aan ulayskayga aan saarayo in dad Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan in dadka maamulaya ay Soomaali noqdaan soo ma jeedid marka laba arrimood oo saddex arrimood baa sahlan waxa weeye waa midda shaqada ah oo yani dadka ka shaqeynaya ay saasiin dadka wax barahaya dadka ilmaha xanaanaynaya iyagu ay maartay ilmahooda halkaas ay keensadaan halkaasna dhaqaalaha laga kabo hadii la heli ka dhaqaalaha dhan waa okay laakiin hadii dhaqaalaha inta badan laga kabo yani waxa aan dareemi karaa maartay Soomaali badan inay maartay ka qayb qaadanayaan oo ay laftooda shaqana ku helayaan magacoodan runtii wax ku maartay wax weyn ay ku gaarayaan tan waa midaas weey midda kale waxa weeye midda la xiriirta dadka ilmaha laga qaadanayo dadka ilmaha laga qaato yani waxaan u baahannahay run ahaantii in aan helno dad Soomaaliyeed oo ilmaha reerka laga qaato xanaaneyn kara apply family ayaa la yiraahdaa waa sharci dhigan weeye waa la tababaraya mushaarna way qaadanayaan maxay yahay arrintaasi macnaha dadka apply family-ga ugu yartay oo ah dad maxay tahay waxyaabaha shuruudda lagu baahan yahay qofka Soomaaliga oo arrintaasi doonaya inuu ka qayb galo maxay tahay shuruudaha loo baahan aqoon miyay u baahnayn shuruudaha loo baahan yahay waa qofku inuu waarid dhabaya yani tacliin dheeraad ah meel looga baahan yahay ma jiraan waa inuu qofku yahay qof mas'uul ah waa inuu yahay qof yani waaridnimo u soo jeeda waa inuu leeyahay meel ilmuhu ay degi karaan ilmahaas la siiyay
يعني meel haddaysan jirin ma degi karaan soo ma jeedin waa inay jiraan qofkaas waa inuusan qof nadiif yahay oo yani aan dambi gelin oo qof waarid inuu yahay tababar baana la siinaya run ahaantii tababar gaaban baa la siinaya sida arrimaha loola xiriiro sida degmada loola xiriiro sida reportka loo bixiyo sida maaragtay ilmaha loola xiriiro sababtu waxa weeye waxa la ogaanay reportyaal waaweyn oo la qoray ayaa jiray ay qoreen muxuu ahaa Copenhagen iyo halkan xataa laga qoray waxa la ogaaday ilmaha la qaado inay waxyaalo wax weyn iska bedelaan yani waxay noqon kartaa xagga dhaqankooda noqon kartaa waxay noqon kartaa xagga diintooda noqon kartaa xagga waxay noqon kartaa xiriirka ay la leeyihiin waalidiintood ayaa isbedela yani tuu hore u haysan jiray aad isaga bedeshay garanaysaa marka siskaas loo kaaftoomo waxa muhiim ah in ay ilmahaas ay la nool yihiin maaha ilmaha kale Soomaalida kaliya maaha in ilmuhu la nool yihiin yani qof yani ilmihii xanaaneyn kara afkoodina garanaya afkooda waxaan kale ilaawa afkooda ilaawan afku waa muhiim dhaqankaaga iyo afkaaga waxa weeye waa mid muhiim marka waarid afkii ku hadlaya ama Carab noqon kara ama Soomaali noqon kara gaar ahaan hadda waxaan ka hadlayaa waa Soomaalida in ay la helo dad Soomaaliyeed oo waalidiina oo la tababaro ayaguna mushaarka ku qaata ilmihii Soomaaliyeed xanaaneeya oo dhaqankoodii iyo ku xanaaneeya iyo maartay iyo luqadoodii taas horta waa mid muhiim ah midda labaad midda kale aan raba inaan maartay culayskayga aan saaro waxa weeye xagga shaqada midaan ka hadlay oo ahayd inaan culays weyn aan saaro sida haweenku ay shaqada ku heleen soo ma jeedid oo ahayd in tababar loo furo yara gaaban in laga raadiyo qaybaha ay aadayaan qayb bay noqon kartaa ma qaybta degmooyinka shan qaybood ay leedahay degmadu leedahay qaybta ay aadayaan bay ku xiran tahay lala hadlo xataa dadkii tababar lahaa la raadiyo mushaarkoodii ku tababar lahaa barasa hadhowna la hubiyo oo la aad loo hubiyo markii ay waxbarashada ka soo baxaan inay maartay ay shaqo heli karaan oo meesha laga shaqo gelinayo waa mid muhiim ah waa tii aan dhacday daryeelka dadka waaweyn ahayd marka wajiyaal kale yeelan kartaa waxay noqon kartaa waxyaalo qayb kasta ayay noqon kartaa run ahaantii laakiin midda haweenka oo ah aad iyo aad muhiim ah waxaan rabaa inaan soo nooleeyno tii ahayd ayada ahayd inaan soo nooleeyno aan niraahno maartay ilaa waxaan u baahannahay maartay arrintaas ayada in dib loo soo nooleeyo waxaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jirta iskoolkiina seegtay shaqana aan hayn waxaa ogsoon tahay wadhood shir ka qayb gashay in oo booliisku iyo dad badan degmada dad madaxa ka socota ay yimaadeen in dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan lagu soo sawiray oo la yiri waxay taagan halkaas ayagoo faraha kula jira arrimo xun maxaa macnaha dadkaas dhalinyarada Soomaaliyeed lagu jahan karaa runtii taas waa mid dhacda weey hadda run ahaantii 12 bisha aan ku jirno hadda waxaa la qabanaya conference weyn baa waxaa lagu qabanayaa dugsiga Sunabang oo ku yaala Qoosno gadaashiisa ku yaala oo VB ku yaala ayaa lagu qabanaya waxaa iskala qayb qaadanaya run ahaantii guryaha shirkadda guryaha iyo waxaa iskala qayb qaadanaya degmada ayaa iskala qayb qaadanaya si looga hortago dhalinyaradu inaysan maartay gelinin arrimaha aysan isticmaalin arrimaha muqaadaraadka aysan isticmaalin sababtu waxa weeye marmarka qaarkood waxaa la arkaa يعني جورال laga akhriya maarta arrin noocaas in ka soo san badnayn meelaha qaar kood maarta dhalinyaradu oo gaar ahaan Soomaalidu ku jiraan maaha Soomaali kaliya moogta in maarta ama xashiishka ama wixii kale oo lamida ay maarta meesha ku qaataan taasna waxaa loo baahan yahay maarta in laga hor yimaado haddii laga hor yimaado xashiish iyo arrimahaas ay badda galaan yani waxay hor istaagaysaa shaqadii aad lahaayeen waxbarashadii aad lahaayeen noloshooda ayagu ay isdabalaayeen mustaqbalka dambe ay isdabari lahaayeen halka ma muddo waalidiintu inay ka seexdeen run ahaantii waalidku horta bal qaarkood hadda waxaan ogahay dadaal weyn bay ku jiraan waxaan ogahay VB qaybtaas inay culays weyn iska saareen waxaan kale ogahay qayb kale oo ayaguna dhinacan muxuu ahaa xasle iyo dad badan baan ogahay run ahaantii yani waalid badan oo culays weyn iska saaray laakiin qaar baa laga yaabaa inaysan isla markiiba ku baraarugin soo ma jeedin in ilmihii meesha ku maqan yihiin meesha jiraan aysan ku baraarugin laakiin hadda waan way ogyihiin sababtoo hadda waa conference labaad oo dhaci doona weey mid anaaba diyaariyayba oo ku qabtay taqriib lusuuska aan ku qabtay bisbaheew aan ku qabtay oo ay yimaadeen booliiska aan u yeeray oo aan u yeeray duqii magaalada hore Fleming Knudsen aan u yeernay yani saasan u wadnaa mawjada sababtoo waxa weeye waa mid aad iyo aad muhiim ah waalidku inuu ku baraarugsan yahay oo arrintaas ay ka hor yimaadaan sababtoo waxa weeye hadday arrinta aysan joojinin waxa laga yaabaa ilmuhu maartay mustaqbalkooda inuu xumaado waa mid muhiim ah ay doorashooyinkan wali ku guda jirnaa iyo dhalinyarada magaalada Oostekan hadda ka hor shir conference ayaa qabatay oo arrimahan dhalinyarada looga hadlayay oo la dhahayay
waxaa la sameynayaa kahortag inay dhalinyaradu aysan noqon dambiilayaal arrintaas aad baa lagugu dhaliilay berigii shirka aad qabatay hadda waxaan ogsoonahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay loo diray meelo dalalka shisheeyaha ah waalidiintoodu ayagoo aan ogeyn halkaasna laga yaabo inay ku dhintaan si khaldanna loo diray ma isleedahay berigaas dadka 4 sano ka hor bay ahayd ama 2 sano waxaad ka digay sida maanta yimid horta taas horta waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan weeye waana nasiib darro dhalinyaro ka tagta Denmark ka tagta jinsiyada badan isku jira ka socda inay aadaan wadamo kale ay aadaan oo ay maarta dagaal ka galaan taas waa mid aad horta nasiib darro weyn u ah shirab badan hadda maalin weyd booliisku oo qabtay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ayaan joogay dad waaridiin ayaa kacay sida adiga aad sheegayso oo istaagay oo dadku waxay noqon karaan dad Soomaali ay noqon karaan dad Carab ay ahaayeen oo sheegay ilmahoodii in maartay ay aadeen Syria ay aadeen oo dagaalka ay ka qayb qaadanayaan taas oo runtii waxa weeye waa mid waxay ahayd maartay min nasiib darro ah waaridkii halkan ay leeyihiin wax dhibaato ah taagan oo hadda dad waxaan u maleynahay inay yar tahay waa badan yihiin sidaan hadda aan dareemayo marka Soomaalida kalena ma ahan waa dadkoo dhan run ahaantii waxaan ogsoonahay 2 qof anigu aan ogahay 2 qof oo Soomaaliyeed oo waalidiin oo magaalada la degan ee dhibaatada saameysay taas horta waxa runtii waa iyaduna nasiib darro weyn weey waa mid loo baahan yahay in la joojiyo sababtu waxa weeye ilmuhu markay halkaas ay dagaal aadaan iyagoo da'daas oo kala ah wajida waxay keenaysaa dhibaato weyn bay u keenaysaa mustaqbalkooda ayagana si xun bay u saameynaysaa wajida marka taas oo kale waa mid aad iyo aad muhiim u ah anu waagii aan arrimahan maarta isdhahayay bal aan ka hor nimaano yani iyadana nasiib darro hadaan iraahdo dad badan baa waxa moodaa inay ay qalad iga fahmeen aniga nasiib wanaag waa la qabtay conference waan qabanay dad badan baan isugu yimid waxa noqotay mid lagu guuleystay maxaa ka soo baxay waxa ka soo baxay oo dadku ay u maleynayeen in waji kale ay lahayd oo ka soo baxay waxay ahaayeen dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nadiif ah dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad muxuu ahaa bulshadan geeskooda kaga jira inay yihiin dad maartay nadiif oo saasa laakiin in yar ayaa jirta sida bulsho kasta ay u jirto bulsho kasta waxaa jira in yar ayaa jirta oo ayaguna maartay run ahaantii qaladaad gala waa mid anigu aan reeyay maartay in ayaga laga hor yimaado garanaysa taasna waa tii hadee dad badan baa waxay u qaateen maartay inaan anigu aan meel kale ula jeedo dad baa maartay wixii aniga aan u wadayba fikradan wadayba iga qalloociyay garanaysa taasna run ahaantii yani mid ay ku guuleysteen ma ahan sababtu waxa weeye dhibaatada laga hadlayay iyo waxaan anigu aan rabay inaan sameeyo yani farq weyn baa u dhaxeeyay waxyaalaha aniga farta laygu taagayay soo ma jeedin marka taas horta waxa weeye waa mid maartay nasiib darro ah in maartay ay hadda aan aragno arrimaha noocaas oo kale inay dhacayaan oo ay socdaan waa mid aad iyo aad maartay nasiib darro noo ah laakiin midaan ka hor imaan karna weeye haddaan dadka Soomaaliyeed nahay ilmaheena ayaa waxa loo baahan yahay inaan talagelino inaan la hadalno ilmaheena inaan soo dhaweysano garanaysa ilmaheena inaan la socono meesha ay jiraan sababtu waxa weeye haddaadan ogeyn meesha ay jiraan oo aad la kulantid wiil 17 sano jir 16 sano jir aad ogeyn meeshu ku maqan yahay ama gaarba ha noqotee yani waxa weeye yani mas'uuliyadda waalidnimada ayaa loo baahan yahay maartay culays weyn iska saartay qaarna nasiib darro inkastoo waalidku culays saarahayo ay dadaal ay ku jiraan iyo haddana maartay nasiib darradan oo kala dhacaysa waa mid loo baahan yahay dadka arrimahan oo kala sameynaya ilaa ilmo wiil 17 sano jir u malayn maayo inuu aroortii intuu hurdada ka kaco yiraahdo waxaan aadayaa Syria u malayn maayo waxaa jira maartay qof weyn oo asaga ka maskax weyn ayaa maartay ka dambeyn kara garanaysa marka waxa loo baahan yahay taasna anigu hadda booliisna maahi yani waxaan ka qaban booliiska baa lu kule arrimahaas laakiin anigu midaan ka talagelin karo fikir ahaan maadaama ay saameysay dad walaalaha ee Soomaaliyeed ee degan halkan iyo kuwa anagu aan ogeynba oo magaalooyin kala degan macnaha arrintan waa arrin xasaasi oo aad u culus haddii ilmaheena iyo dhalaankayagu si meel khaldan loogu diro maxaa macnaha ka hortag ah oo aad la samayn karaa midda la samayn karo run ahaantii horumar fiican baa la samayn karaa waa middan hadda ka hadlahayo waxa weeye inaan shirar qabanno inaan waalidiinta waalidka baraarujino oo aan waalidka la hadalo dadka aan ku baraarugsanayn inaan ku ilmuhu luqadda waa kaga rooyihiin waalidka inta badan saan dareenno ilaa waxa weeye ilmuhu iskool bay aadayaan ilmaha kale waxay la ciyaarayaan meel walba ilmihii dadkii bay ku dhex jiraan bulshadii soo ma jeedin marka deegaanku waa kaga horeeyaan waxa la yahay waalidku marmarka qaarkood
waalidka dhan ma ahan qaarkood aysan ogeyn maartay ilmuhu waxay samaynayaan marka midaan u baahanahay waa baraarujin waa talagelin waxa loo baahan yahay waliba gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dad waxgarada oo Soomaaliyeed inta la xulo la yiraahdo war sidee baan arrintan looga hor imaan karaa oo waalidiinta Soomaaliyeed ku nool Aarhus baan ka hadlaynaa hadhow ha gaarta meelaha kale sidee baan ku talagelin karnaa sidee baan fikradan uga dhaadhicin karaa tan inay khatar tahay sababtoo waxa waa mid khatara ilmo wax ku dhiban karaan koraysa ilmaha maskaxdooda wax soo gaari karaan marka taas waa mid muhiim ah oo aan culays aniga runtii muhiim ii ah gaar ahaan inaan maarta culays ka saaro dabcan ku baraarujin degmadu maxay ka qaban kartaa ilaa degmada lafteedu yani waxay u baahan tahay maarta inay wax ka qabtaan biyo qoodka laftiisu ama meesha maamulka degmadu wax weyn buu qaban karaa markay go'aamo gaaraan hadda conference aan qabanay yani degmada ayaa go'aan gaartay in conferenceaas la qabto way fikradii aan keenay garab istaagaan soo ma jeedid marka saas oo kale waxa way fikrado badan baa jiri karo xataa qof caadi ka imaan kara marka dhalinyarada waxay u baahan yihiin meel ay isugu yimaadaan bay u baahan yihiin waa mid culayskayga aan saarahayo golo weyn ay isugu yimaadaan si ay uga kaaftamaan dhoofidan ay dhoofahayaan soo ma jeedid inay meel ay isugu yimaadaan ay jirto in la helo meel ay kubadda ku ciyaaraan hadda meelaha qaarkood banaanka iska taagan yihiin qaarkood meel markay banoon ku ciyaaraan kuwii meesha iska laha markay yimaadaan bay ka dareerahayaan meel dhawoodaan elakaya joogay dugsiga elakaya joogay ilmo waxay dhalinyaradu waxay ii sheegeen kubadda ciyaarahayaan sababta kuwii waxaa ka maqan garoonka iska lahaaba maanta ma joogaan annaga ciyaarayna taas ma soconayso waa inay helaan ilmaheenu dhalinyaradeennu meel ay ayagu kubadda cagta ku ciyaaraan waa inay la tartami karaan ururada kale kooxaha kale kubadda ciyaara waa inay xataa dhoofi karaan soo ma jeedin waa inay xataa la soo ciyaari karaan Sweden Norway wadamada aan isla ciyaarno Jarmalka isla soo ciyaari karaan waa in dad Soomaaliyeed soo bixi karaan kubadda cagta ku wanaagsan kubadda kolayga ku wanaagsan dabaasha ku wanaagsan gabdhahaanu ayagu laftooda waxay ku fiican yihiin in culays la saaro ay kula tartami karaan qolo walba kula tartami karaan marka anigu culays weyn baa horta dhalinyarada xil weyn baa iga saaran runtii oo aan damacsanahay maarta inaan ilaa aan ku dadaalo 100% ali dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxyaabo u qabanaysa waa garanay maxaad jeceshahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maadaama aad doorasho hadda aad u sharaxan tahay oo aad doonayso in lagu doorto dad badan oo Soomaaliyeed doorto waxay qabaan gabi ahaanba in qof shakhsi oo Soomaaliyeed hadii la geeyo meesha uu waxba qaban karin dadkaas shaki uu ku jiro maxaa shaki uga saari kartaa horta run ahaantii yani dadka fikradaas qaba yani waxaad moodaa ama waysan ogeyn waxa la qabto meesha laga hayo marka buuqood qofku galo يعني بوقود بالي أفكار شو يقول هذا مركان لنا هاي يعني وحوي ومعمل قبلك قلها معملك دق مدوي سو مجدد دق مجال أيام مدحوها سو مجدد مركا صدني كوق أنا وقت السنة مركا دتك يعني ماشي كتير روحانتي وحياله وين مي كمان كران وعديك سامعين هاي برشة سامعين هاي يعني وحي كدودي كران وحياله وين وهدي لا قدرين قف كاسة هذا ماله الجبر بل فين هي جبر محوها فيتنام كتيمين هي ما عرفت لقى قاعدة المهدة يقول هل كان شوكتها محل يريم ودر حق مرينا دوفتي هل كان بارو قال أنا لو حن كتير دتك هل كان كتير أو ده يم وقرالة أما هنقضي أنا أما فيسبوك هنقضي أما ميلو هنقضي ده هل كتير مركب وحوي وحياله وين بالغ من كرا تانو ما حتى أن تلصيه يعني شرعيات إسكب الدليل إن نعاويه وحيالها فرصة عمل حق الشقة هنقطة حق وحبرش هنقطة حق بلش هنقطة يصير لسوق معلا يرمها شيء قردن يصير لو تحجن لها يعني وحيالها آدي آد أبلارن وحيالها بدل ما الغام كرات مركز الصومالي وحنا كبرارجين هي هذا الصومالي أسود شيء دين الساعة مركز الصومالي وحنا كبرارجين هي وأمريكا كوالي إن استعمال الحقوق ده أيوة اللي يهين والشرع اللي يهين إنه واحد دورتان أيها كان الله دوران كرو إن أيوة أي موتشيان أين سميان الصومالي كنت آد بيقولنا سنان شرتي إن كستو مارت اللي بها هي هيركوضة أي تاجين إنه هراء وسيكعان soo ma jeedi marka waxa weeye runtii aan waxaan ku baraarujinahay soo kaceen Soomaalidu ha fiiriyeen yaa meeshan ku haboon oo gali kara anu waa iska hadlay yani qofku markuu sharaxan yahay laftiisu wuxuu sheegaa maartay waxbuu sheegaa ma waqti qaarkood waxay leeyihiin qofku wuxuu sheegayo qaar baa laga yaabaa inaysan wax soconaya ahayn taas waxa weeye wax weyn baan qaban karaa Soomaalida aan u qaban karaa wax weyn waan u soo qabtay kuwa hadda aan sheegay iyo waxyaalo kale oo lamidana waan u qaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka Soomaalida ayay jirtaa waqti dadka Soomaaliyeed ee hoos ku nool ilaa dadka kale degan Copenhagen ma dooran karaan waa dadka degmada kaliya ayaa dooran kara soo ma jeedin marka waxa weey qofku anu waxaan jeclaan lahaaba dadka Soomaaliyeed inay soo baxaan oo ay doorashadooda codkooda ay baxsadaan ayaan jeclaan lahaa aniga hadii codkooda isiyaan
in badan codkooda ay siisana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taas midaan shaki igama jiro taas xeerta hawada nagala xiriirtay halkaad naga dhegeysanaysa waa Somali Magazine oo wiigiiba aan idiin soo sii deynaa hal maalin ee Talaadada